wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamine Maxamuud Jirde ayaa maanta waxa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Kalabayd oo ka tirsan gobolka Gabiley. wafdigaasi intii aan soo gaarin gudaha magaalada Gabiley iyo waliba deegaanka Kalabayd waxa duleedka kantaroolka bari ee deegaanka Caabudle kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gabiley. waxaana wafdigaasi loo soo galbiyay dhinaca deegaanka Kalabayd oo dhinaca galbeed ka xigta gobolka Gabiley. waxaana wafdigaasi si diiran ugu soo dhaweeyay deegaanka Kalabayd dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi Kalabayd oo aanu kala harin caruur iyo ciroole haween iyo waliba ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee deegaankaasi. jeedada wafdigani ay marwadu hogaaminaysay ayaa waxay dhagax dhiga dhismo caafimaad oo ay ugu deeqday Soomaaliland marwada madaxweynaha Jabuuti Marwo Khadrax Maxamuud Xayd. dhismahaasi oo laga hirgelinayo deegaankaasi Kalabayd waxaana wafdigani marwada ku wehelinayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Sanebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye, wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsom Cabdi Aadan iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo. waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay marwada madaxweynaha iyo waliba wasiirka caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwo Samsom Cabdi Aadan waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta halka sida sharafta leh noogu soo dhaweeyay aad iyo aad baan u salaamaya ugu mahadnaqaya. maanta halka waxaynu isugu nimid inaynu dhagax dhigno walaasheen Khadrax Maxamuud Xayd marwada koowaad ee Jabuuti. deeqdaa sharafta leh hadday raashinka gaariga halkaa taagan tahay iyo hadday cusbatalka tahayba ay ugu ballan qaaday ee ay u fulinayso Kalabayd oo magaalo aad iyo aad iyadana ay muujisay inay qaali ku tahay annagana qaali nagu ah. maxad baanu u soo sheedinaynaa walaal Khadrax anigoo ka wakiila caruur iyo ciroole dadka degan magaalada Kalabayd waanu ku mahadnaqaynaa. guud ahaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan way ku mahadnaqaysaa. ilaahay ha kaa jazaaisiiyo. waxaan aad ugu mahadnaqayaa marwada Jabuuti Khadrax Maxamuud Xayd oo runtii halkay ku dhalatay oo ayaa leh waxay ku dhalatay meel qurux badan oo Kalabayd la yidhaahdo. axsaan ay ku farxaysaa inay meel qurux badan ku dhalatay oo dad ku wanaagsani kulligeed iyo runtii isbitaalkaas ay ku gaarday marwada koowaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti Khadrax Maxamuud Xayd. waxaan uga mahad celinaynaa xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba deeqdaa muhiimka ah oo ah sadaqo jaariya. waxaanu uga mahad celinaynaa Jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan iyo gaar ahaan marwada. isbitaalkaas wixii aanu ku qaban karno oo kalena uqaasha salaadiinta iyo waxgaradka iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gabiley oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa. Khadrax Xayd waxaan leenahay ha noolaato ee ay soo wakiilatay marwada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamine. madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado. xukuumaddu ha noolaato. marwada koowaad ee qaranku ha noolaato. qof kasta oo waxqabadka qaranka jecel ha noolaado. waxaan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyada meelahan ay soo dhintay marwada koowaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti Khadrax Maxamuud Xayd oo ay soo wakiilatay marwada koowaad gabadhiina waxay marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamine Maxamuud Jirde shahaado sharaf guddoonsiisay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim oo kamid ah wariyaasha ka howlgala telefishinka caalamiga ah Cable kadib markii uu baahiyay baahida ay deegaankani u qabaan dhismaha isbitaalkani. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shuba, Samsa TV, magaalada Gabiley.